guddiga abaaraha ee degmada Gacanlibaax ayaa 200 oo kiish raashin ku wareejiyay maamulka degmada Gacanlibaax hadaba munaasabad kooban oo loo qabtay wareejinta deeqdaasi ayaa waxay ka dhacday degmada Gacanlibaax waxaana ka soo qayb galay maayarka caasimadda Hargeysa xildhibaano golaha deegaanka gudiyada xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Gacanlibaax iyo marti sharaf kale hadaba waxa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha degmada Gacanlibaax Subeer waxaana hadaladiis ka mid ah salaamaya dadweynaha martida sharafta leh halkan isku timid iyo dadweynaha hawshan ka qayb qaatay ee degmada waxaan soo ururnaa marka hore wuxuu ka kooban yahay daqiiq bariis sonkor macaroni saliid ka kooban yahay mudan maayo waxa weeyaan dadkii soo ururnaa halkan ay fadhiyaan galaan way soo urureen waxaan wax بخار انت laga soo qaado waa cala galaan dadka sideed ko ogaado dhibaatada waddanka jirta waan ku mahadsan dadweynaha soo galay wali waxa ugu badan dumar baa ugu badnaa wax ka soo kala oo guntada guri walba garaacay ilaahayna jisaayiisa uu siinaya waxaan ma ku wareejinaa 200 oo kiish oo 25 gram ah 12 caagado saliida oo 3 gram ah iyo sideed macaroni basta isku jira kartoon degmada Gacanlibaax waxa weeyaan hormoodka degmooyinka saanaan u aaminsanay madaxduna way cadaan doontaa waxa degmadu halka waxa fadhiya mudana maayer dadkii hawshan u gudtay degmooyinka kale ugu dhiirradaan mar walba waxa qabtay degmada Gacanlibaax waxaan sheegay dadweynaha maamulkayga hoos mareeyay gudoomiyaha waxa hadalka soo xiray maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Caydiid Solteeko degmada Gacanlibaax maamulkooda haduu noqdo gudoomiyaha degmada guddiga nabadgelyada culimada dumarka oo kaalinta ugu muhiimsan ka qaatay waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin jazaakumullahu khayran wa jazaa waqti adag baad la soo qaadateen oo saar xaafadaha kaga soo gurteen waa la socdaa aad baad u mahadsantihiin waxaan leeyahay khaasatan dumarku hadayna u kicin ummadda waxba lama qabsado hadii jeer waa la dambeysay dumarka waxaan ogahay inay kaalin muhiim ah oo lafdhabarka kaga jiraan bulshadeena iyo wax kasta oo la qabanayo aad baan idinku mahadnaqayaa waxa weeyi hooyo biil la siiyay amba iyadu ciyaalka u soo shaqaysay wixii ay ciyaalkeeda siinaysay qayb ka mid ah bixisay way raashinkan halka isugu keenay oo ugu tala galeen inay ummadooda kale baahan haday Hargeysa ku nool yihiin haday awdal ku nool yihiin haday Salal ku nool yihiin haday ku nool yihiin baran ay ugu tala galeen inay dadka gaajada kaga biyaan sida halkan liiska la igu soo gudbiyay xaafada Maxamuud Xarbi baa number 1 ka qaadatay number 2 ga xaafada Sheekh Madar number 3 ga xaafada Sheekh Nuur aad bay u mahadsan yihiin ya xaafadaha kale ka qayb qaatay raashinka halkan lagu soo ururiyay waa 200 kiish oo 25 kiilo sabah 12 caagadood oo saliida iyo 8 kartoon oo basta intaas aynu kala wareegaynaa waa degmadii koobaad degmooyinka kale oo loo wareeg doonaa baan ku wada wareejin doonaa guddiga abaaraha hadii Ilaahay raado aad baa u mahadsantiin aad baan idinku mahadnaqayaa si fiican u soo wareegtaan degmadii koobaad noqotaan ee soo hoosay ku soo degdegtaa degmooyinka kale waxa filanaa inay labada cisho soo socdaan ay hawshii waxay dhameeyeen soo wareejin doonaan hadii Ilaahay raado aad baa u mahadsantiin assalaamu calaykum degmada Gacanlibaax ayaa noqonaysa degmadii ugu horeysay ee ka qayb qaadata gurmadka abaaraha waxaana soo bandhigeen raashin fara badan oo ka kooban saliid bur sokor iyo daqiiq oo barta kula wareegay deeqdii raashinka ahayd waxaana uu sheegay in degmada Gacanlibaax ay tahay degmadii ugu horeysay ayna dhiirigelin mudan tahay Cabdirashiid Cismaan Barsan TV Hargeysa.